shirkan oo isugu jiray tababar iyo qiimeyn hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaan 42 laamood ee ay hay'adda adeega lacagaha yaryar ku leedahay deegaanka. qiimeyntan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa xoogga lagu saarayay waxqabadka sanadkani laga qabtay adeega ay bixiso hay'addu ee dhanka shaqo abuurka, bixinta deymaha iyo soo celintooda, adeega keydsiga iyo adeegyada kala duwan ee Hello Cash, iyadoo qiimeyntan lagu kala saarayay dhinacyada adag iyo goldololooyinka jira ee u baahan in la saxo xilliyada soo socda, taasi oo sidoo kalena guud ahaan laamaha hay'adda adeegan lacagaha yaryarna la siiyey tababar ka caawin doona sidii ay u sixi lahaayeen caqabadaha iyo dhaliilaha ka jira adeegyada ay bixiyaan. Waana kan maareeya ku-xigeenka hay'adda adeega lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Nuur Maxamed Ismaaciil oo warbixin naga siiyey. muddo 10 cisho ayaa waxaa noo socotay kulan shir isugu jira qiimeyn iyo tababar oo marka hore aan ku qiimeynay dhammaan waxqabadkii laamaha xafiiska iyo gobolladuba ay muddadii sanadka ahayd waxqabadkoodii. Si guud waa shir sanadla'a, walow aan qabanno shirar kale oo rubcula, laakiin shirkan wuxuu ahaa shirkii sanadlaha aan ku firinaynay waxqabadkii laamuhu iyo gobolladu qabteen, dhinacii wanaagsanaa, maxaa shaqooyin qorshaysnaa oo aan la qabsoomin, caqabadihii jiray maxay ahaayeen, sidee sanadka soo socda laskugu diyaariyaa, caqabadaha inta gashi loo qaato, sanadka soo socda qorshahaan diyaarinayno oo hadda gacantiisii hadda aan ku hayno in aan gashi noo qaadano qiimeynta waxyaabahaan u aragnin dhaliilahayeen, caqabadahayeen ayuu ahaa shir ka saabsan markii hore. kadibna markii qiimeyntii aan dhammaynay waxaan haddana mar labaad isla shirkii anoo sii wadana aan bilownay in meelihii aan u aragnay in ay ka jiro dhaliil ama habacsanaan ama fahandaro inaan ku samayno shaqaalahanaga laamaha iyo gobolladaba inaan ka siino aqoon iyo cilmi oo aan tababaro muddo 4 cisho socotay oo kale aanu haddana u bilownay. tababarkiina maanta ayuu soo dhammaaday. waxaan ku siinay dhinac kasta oo aan ka dareennay in ay ka jiro gaab ayaanu intaanu u diyaarinay wixii lagu tababari lahaa baan ku tababarnay guud ahaan si sanad soo socda aan dardar cusub iyo iyadoo la xaliyey wixii caqabadaha wixii la xiriiray aqoon darana meesha laga saaray inaan sanadka soo socda insha allah 2022 ama 2024 tirka Itoobiya aan ku galno weji cusub iyo dardar cusub. waxaana halkaasi abaalmarin shahaado sharaf ah lagu guddoonsiiyey laamaha hay'addan adeega lacagaha yaryar ee sida wanaagsan u gutay waajibaadka shaqo ee saarnaa. waana kuwan qaar ka mid ah laamahan oo ka hadlaya. qiimeynta haddaan koreeyo macnaha qiimeyntu waxay ahayd qiimeyntii sanadkii 2022 waxqabadkii qorshihii yaalay sanadka iyo kamera dhalintiisii baa la isku qiimeynayay. marka branchi macnaha laan Somali Microfinance sida ognahay waa 42 laamood deegaanka ku leeyahay. maareeyaashoodii baa la isugu yeedhay magaalada Jigjiga si lagu qiimeeyo macnaha waxqabadkii wixii ay u qabsoomay 12 bilood u dambeysay iyo wixii u qorshaysnaa macnaha waxqabadkii intii ugu qorshaysnayd wixii ugu qabsoomay. kadib muddo 3 cisho waxaa la galay tababar 3 cisho socday. tababarkaas oo ahaa xoog lagu saarayay geedi socodka iyo dhaliilihii ka soo baxay qiimeynta iyadoo laga duulayo. tababar ayaana loo qabtay. tababarkaas waxaa la xoog lagu saarayay nidaamka macnaha muraabaxada ee shariicada islaamka sida loo mari lahaa iyo sidii awal hore loo mari jiray qiimeynta wixii dhaliilihii ka jiray si loogu saxo iyo laguna kordhinayo garaadka aqoonta iyo macnaha waxqabadka maareeyaasha laamaha. waxaan ku mas'uuliyad sideedaba shaqo marka la qabanayo marka hawl lagu diro hawshii macnaha sida uga soo baxdo ay qiimeyntu ka timaadaa. macnaha qofka marka hawl loo diro mas'uuliyad la saaro mas'uuliyadiisa hadba waddo ka soo baxana abaalmarin buu helayaa. haddii ka soo bixin waayo abaalmarintii lidkeedii buu helayaa. marka waxaan ahayn maareeyaashii ama laamihii abaalmarinta ku helay wax shaqo wanaagga ahayd waxaan ku helay marka koowaad waxa weeye ka go'naansho macnaha ka go'naansho aan muujinay iyo shaqada xafiiska aan daacad u nahay oo si daacad aan shaqadeeda u gubanay waajibaadkiisa daacad u gudanay iyo ilaahayna la garab galay. waxaan kaalinta koowaad u galay online systemka programka online systemka 42 branch baan kaalinta koowaad u galay. aad baan ugu faraxsanahay maadaama kaalinta koowaad online system baxnay branch ahaan in hay'adaha kale ka horumarto institutionada kale ka horumaro. waxaan ku faraxsanahay inaan u talaasanay Shabeelle Banki oo noqonay bangi Islaami oo dhameystiran oo bangiga ugu horeeya Soomaaliyeed ee deegaanka laga hirgeliyay inaan anagu noqono
annagoo shaqaale ahaan tayo wanaagsan tayadeeduna aad u wanaagsan tahay. waxaa maanta noo soo gabagaboobay shirkii qiimeynta iyo tababarka isku jira muddo 10 cisho nooga socday magaalada Jigjiga. wuxuu noogu dhamaaday guul. waxaan jecelahay inaan intaa in ka badanba hay'adda ama institution-kayga aan u shaqeyno. qiimeyntan ayaana ku soo hagaagtay xilli uu gabagabo marayo qorshaha banki loogu bedelayo hay'addan adeegga lacagaha yaryar ee dowladda Soomaalida.